aan idinku wacay shir jaraa'id oo ku saabsan arrin soo baxday 24 saacadood ugu dambeeyay oo ku ah qaranka Hagardaamo. arrintaas waxay tahay sida ogeydeen 15 December waa kii xumaaday calaaqaadka Soomaaliya iyo Kenya. wanagii u yeedhanay danjiraheennii iyo safaaraddii tiimkii naga joogay calaaqaadkiina wanagii hoos u dhignay. intaa kadib waa tii la isugu tagay shirkii Djibouti ee madaxda IGAD. shirka waxaa la saaray guddi xaqiiqo raadina oo warbixin ku soo celiyay IGAD. waxaan idinku yeelay maanta warbixintii oo soo baxday. warbixinta IGAD ee soo baxday aad bay Soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dawladda Djibouti aan walaalaha nahay in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqo raadis noqoto oo ay soo aruuriso dadka. riboodkii wuu soo baxay. riboodka waxaa hogaaminaya 7 xubnood oo ahaa guddida xaqiiqo raadiska. waxay ahaayeen 6 reer Djibouti ah iyo xubin ka socotay IGAD. 6 reer Djibouti waxay ahaayeen ambassador Yaasiin Cilmi Buux oo ah safiirka Djibouti u fadhiya Kenya, ambassador Aadan Xasan Aadan Belelo oo ambassadorka Djibouti u fadhiya Soomaaliya, General Daahir Cali Maxamed oo general ka tirsan ciidamada Djibouti, Colonel Cali Aadan, Colonel Maxamed Barkad, Colonel Hussein Idris iyo xogayaha oo ka socday IGAD. riboodkii soo baxay dawladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo amankaag iyo qaadan waa wax aan loo fadhiyin oo aan la filahayn. wuxuu ka hadlayaa riboodka ama warbixinta ay guddidu soo saareen wax alla wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay. guddidii xaqiiqo raadinta ee Djibouti ka socotay waxay ka soo saareen xukuma jiraan airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay. waxay yiraahdeen Soomaaliya khaldanaydoo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaaday iyo kuwa ciidanka iyo kuwa loo diray. waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaanay imanin dhulka Soomaaliya. waxay qoreen inay arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay oo calaaqaadka loo jaray. waxay isticmaaleen waxay yiraahdeen the long standing grievances Djibouti ee Soomaaliya iyo ka dhaxeeya Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda. arrintaana runtii arrin gafa oo la khalday bay ahayd. waxay kaloo ka hadleen inaanay ciidamada Kenya ee AMISOM qaybta ka ahi ka bixin deegaano muhiim ah oo lagu dhibaateeyay markay ka baxeen dadkii Soomaaliyeed ee gobolka Gedo, gaar ahaan Buusaar iyo Faxfaxdoon iyo deegaamadii aynu ka soo sheekeynay. runtii markii guddida la sameeyay sidaan hore u sheegay aad baan u soo dhaweeyay. laakiin waxa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo amankaag. waxaan xasuustay markaan arkay warbixinta ninaanu isnaqaan baanu habeen annagoo wada joogna fiid buu iga tegey. subaxdii buu soo wacay markaasuu xalay markaan ka tagay gabadh baanu isbaranay oo waxaan rabaa inaan gabadhii arooso oo goormaad aroosaysaa bari baan rabaa inaan guursado. wax ku dee dhaqan baynu leenahay horta inaad qoyska iyo gabadha iyo barato soo ma ahayno. wuxuu yidhi gabadhani nin aniga ka horreeyaba weligeed salaamu calaykum ma odhan, telefoonna kama qaban. dhalinyarada tiro aad baa u fahmaysaan. dabeedna waxaan ku yidhi oo yaa kuu sheegay inaanay weligeed qofna salaamu calaykum odhan telefoonna ka qabano iyadaa ii sheegtay. dhammaan riboodka waxaa ku qoran Juma ii sheegtay. Monica Juma wasiirka difaaca ee Kenya sida ay tiri as Monica Juma said waxaa ku qoran riboodka Juma ii sheegtay. riboodkii Monica Juma ayaynu markaa halkan akhrinay. I wish inay iyadu qori lahayd sababtoo wax badan bay ka xishoon lahayd haddii iyadu qori lahayd wasiirka difaaca Juma.
dhaliishu maxay tahay markaa hal dhinac bay horta warkoodii qaateen way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida laba jeer bay Kenya ku noqdeen mandheeray tageen waxa laga bariyay balad xaawo u soo gudba waa diiday dadkii baa loo diyaariyay ciidamadii baa loo diyaariyay shacabkii baa loo diyaariyay soo gudba lagu yiri waa diiday marka xamar yimaadeen baa la yiri aanu idin kaxaynoo diyaaradeed saaro balad xaawo idin geeyno waa diiday arrintaasi dareen bay gelisay markaaba labada jeer ay ku laabteen dareen bay gelisay inay hal dhinac warkoodii wasiirka difaaca qaataan dareen bay gelisay ta ugu cajiibsan waxa weeye waqtigu soo baxay report ama warbixintu wuxuu soo baxay 25 January oo daraad waxa dhacay soo ma xasuutaan dagaalkii waa dhacay duulaankii qaawanaa ee araxda ay Kenya kaga jabtay iyo dabadhilifkii la socday baa 25 dhacay if you look like elephant walk like elephant sound like elephant then you are elephant haddaad sida maroodiga u socoto sida maroodiga u cido sida maroodiga u hadasho then maroodiga haddaad maxaa isku soo beegay 25ka iyo reportka waxaanu ka fahanay in lagu bari yeelo waxay doonayeen inay gobolka gada qabsadaan dabadeedna la bari yeelo yiraahdo Kenya kuma jirto ayaaba cajiibka waxa kamid ah report ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dul marnay xuduudda ma joogaan ciidamadkii waxaanu waraysanay qolada Jubbaland waxay noo sheegeen in aan ciidanka Kenya halka ka bixin waxa soo dhin waxa wax bias ah faceless ah unfair ah impartial wuxuu ka soo horjeedaa reportku dhaxdhaxaadnimadii loo saaray wuxuu ka soo horjeedaa warbixintu shalayto statementkii ama qoraalkii uu soo saaray Musa Faqi madaxa African Union AU-da ee uu lahaa dagaalka gado wuxuu dhaxeeyaa Soomaaliya iyo Kenya AU-d ayaa qiraysa in dagaalku uu yahay laba geesood waxa nasiib darro ah in walaaladeen inta qiri waayeen oo ay khilaafaan warkii AU-da waxay khilaafeen warkii ay sheegeen xildhibaanada iyo senatarada Kenyaatiga ah ee daawateen ee telefiyada waaweyn ee TV ka baxayay ee ahaa in dagaalku uu u dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya Kenya inay faraha ka qaado arrinta Soomaaliya waxa ay reportku ka hor imanaya shacabka gado ee madaafiicda iyo missileska ay carruurta ka laayeen ee Kenyaatiga ku soo rideen inay numeedkoodii dhaawacoodii daawanay waxaas oo dhan ayuu warbixinta ay soo saareen generaalada iyo safiirada Djibouti uu meel ka dhac ku yahay oo ka hor imanaya ilaa African Union ilaa iyo shacabkii gado Soomaaliya iyo Djibouti ma raba arrintu inay noqoto arrin Soomaaliya iyo Djibouti u dhaxaysa waa arrin warbixin khaldan ku kooban kullu ibn aadam khada wa khayra khadaa'ina tawaabun qofku wuu khaldami karaa meel buuna ka dhici karaa bini aadam baana loo yahay laakiin Djibouti waa walaaladii waa ehelkeennii waa walaalkeennii yaraa ee inagu aynu korinay ee xornimadiisa keenay ee ka shaqeynay without us la'aanteen Djibouti dalna ma noqoteen xorna ma noqoteen waxyaabay ugu badnaa in lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii Soomaaliya loola dagaalayayna waxa kamid ahaa xorriyadda Djibouti ee geed dheer iyo geed gaaban u fuuleysay si ay ula dagaalanto super powerskii dunida jiray oo Faransiisku kow ka yahay ee haystay Djibouti ee Security Council-ka iyo majlis aan fadhiyay ee veto power-ka lahaa nuclear-ka lahaa ayay Soomaaliya iska hormadoobaysay si ay reer Djibouti xorriyad ugu noolaadaan heesihii loo qaaday kaydka radio Muqdisho yaalin maalintii la diiday in xorriyadda la siiyo 68 midnimadeennii mugdi gasho magaceeda ayay Soomaaliya oo dhani weer cas bay qaaday midnimadeennii mugdi gasho magaceeda ayay weer cas baa la wada xidhay in Djibouti loo diiday xornimadii markay xorriyadda heleenna waabaa bariyay bilicsan arooriye baxsan maalin boqoran bay noo qaaday waa walaalkeennii yaraa anigaygan idinla hadlaya waxaan xasuustaa waa uu imanayay madaxweynihii hore Djibouti Xasan Guuleed Abdidoon ilaahay oo naxariisto
toddobadii subaxnimo يعني voluntarily حتى ما جري markii la yiri maamulaha la yiri maanta madaxweynaha Djibouti baa imanaya waanu yaacnay ilaa iyo 3 galabnimo 4 galabnimo casarkii subax toddobadii baan xaranay si aanu isu taagno jidka airport 4 galabnimo annaga aan biyo cabin oo waxba cunin oo annagu iskaya u yaacnay si aanu u aragno madaxweynaha iyaga labaad ayaan soo martay waxaanu jecelnahay wanaagooda waxaanu jecelnahay guushooda waxaanu jecelnahay horumarkooda laakiin reportkani wuxuu stain baa la yiraahdaa Englishka bar aan tirmin 100 sanadood ku noqonaya walaalnimada markaas walaalka mararka qaar yani waxay arintani hadda saashanaysaa Kenya ma faragelinayso Soomaaliya macnaheedu waxa weeye farageliye arintaasi arrin siyaasad laga dayan maaha walaaladeenna guddida soo saaray reportkan waxay dhaawacayaan walaalnimada waxaan isleeyahay inay ka noqon doonaanoo ay raaligelin ka bixin doonaan guddidaasi 6 xubnood ee reportka qoray ehelnimada walaalnimada meel bay kaga dhacday sababtoo waxaan anagu u aragnaa dulmigu waa laba dulmiga qofka cadawga ah ku dulmo iyo dulmiga uu ku dulmo walaal labada dulmi hadda waa dulmi isku mid ah laakiin waxa xun dulmiga qofka walaalka ah ku dulmo quraanka marka culimadu fasirayaan laqad dalama akhaaka marka laga hadlayo laqad dalama akhaaka waxa weeye uu ka fog yahay bay yiraahdaan dulmiga walaalka dulmiga kale ee qofka aawil bay haysay uu ku dulmo ninku xiga naxliga ku gala naari kugu beer meel buu kaaga dhacay aadanu uga xunnahay arrinta laakiin waxa hadda griefanisaho nagu jira ma jiraan oo walaalka hadduu ku guddi baa khaldantay reer Djibouti ma khaldamin shacabkii Djibouti ma khaldamin dawladoodina waa dawladeenu la saaxiibka ahayna walaalaha ahayn walaalka hadduu gaban yahay geela kula raaco asaanad gulguli karin geel soo halaabo inta gaawe loo soo dhisaa geed la hariya walaalkaaga yari hadduu khalad sameeyo lama dilay caana la siiyo waxaan rabaa in ogaataan in Soomaaliya dulmi badan ku socdo dagaal badan ku socdo waxa dagaalkan aan ku soo gabagabeynaya statementkayga dagaalkan oo dhan wuxuu inoogu socdaana sidii aan idin sheegay dooraad waa iftiinka inoo soo baxay dawladnimada iyo rajada iyo kabashada inta la inagu dilaya in la inagu haystaa waa inta inagu nabad baynu rabnaa horumar baynu rabnaa Kenya la rabnaa wanaag Ethiopia wanaag la rabnaa shaarko dhammaan wanaag la rabnaa Djibouti iyagu waa walaalkeena yaraayeen inuu gacanta leeyahay dawladda Soomaaliyeed aynu weligeynba dadka ka xigsanayeen difaacooda aynu diyaar u ahayn inaynu u dhimano nafta u hurno marka inagu mar walba waxaynu rabnaa wanaaga iyo horumarka iyo daris wanaaga iyo barwaaqada laakiin dad badan waxay rabaan in Soomaaliya dib u noqoto ay kufto jabto soo kaban weydo laakiin sidan oo kale waxay ku dhacday 1940kii dalka weyn ee Britain la yiraahdo Ingiriiska meel walba waa laga soo weeraray cir iyo dhulba waa la isaga yimi walaalkoodii Mareykanka ahaana dib u dagaalkiisa ga taago waxba waa la gali waayay hadalkii Churchill baa ku soo gabagabeynayaayo markay dadku yaabeen yiraahdeen miyaynu isdhiibaynaa wuxuu yidhi Churchill we shall never surrender weligeen isma dhiibi doono maanta waa ku ayagu dunida ka talinaya Soomaaliyana mar bay ka talin doontaa geeska iyo gobolka waa mahadsantahay